بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ددوينها شرفت له maanta u soo banbaxay xuska maalinta kowda luulyo maalinta midnimada maalinta xurriyadda isugu soo baxay isbartibada stadium muqdisho waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanna waxaan leeyahay hambalyo ayagana walaalayaal waxaan maanta u dabaaldegaynaa xurriyaddii aabbayaasheen iyo awoowayaasheen ay u soo halgameen muddo hore oo laga joogo 63 sano xurriyaddaas waa lagu soo caanamaalay waana midda maanta aan ku faanayno oo dalkeennu inaanu gumaysi ku jirin aan sheegayno hase yeeshee waxaa u baahan faham gumaystaha beriga aabbayaasheen ay ka kiciyeen dalka ajnabi soo duulay oo dibadda inooga yimid oo dalkeenna inuu gumaysto u yimid oo nugu midab aan ahayn nugu diin aan ahayn nugu dad aan ahayn ayay ahaayeen maanta waxaan la tacaalaynaa kuwa nugu dad ah oo annaga naga dhashay oo sheeganaya in ay nugu diin yihiin oo ah wiilashii iyo gabdhihii gabdhaha yaanan iska caayina aan dhaho wiilashii aan dhalnay waaye kuwa maanta dadkeenna dhiiggooda daadinaya oo u taagan inay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda daadiyaan gumaysi kala geliyaan gumaysi macnihiisu waa maxay nin la adoonsadayo muxuu ahay heestii Soomaaliya ay toosoo ku jira nin ikhtiyaarka loo diido la adoonsadaan ahay haddii ikhtiyaarka lagu diiday oo haddii waxa adiga kula quman aad samayso waxa ku xiga ay taa waa ku qarxinaya waa ku dilaya qoortaan ka goynaya dadka hortiisaan kugu bahdilayaa waxa aad yeelan karta male fikir aad yeelan karta male ra'yi adduunyo ma dhiiba kartid iyo mid aakhira intaba walaalayaal maanta gumaysiga aan ku jirna kaas waay waa inaan fahamnaa khawaarijtu waxeedu waa gumaysi oo aan dagaalkeeda ugu jirno maxaan ku yiraahdaa inaan iska xoreyno waagii xurriyadda iyo isticmaalka dalku ay joogeen taariikhyada dhacay ee kili asayle ay ka mid tahay waa oo la foole ay ka mid tahay waa taariikh dugsaneeday halgankii dadkii Soomaaliyeed ee qaarkood culamaa diinku ay hogaaminayeen iyo geesiyaashii ay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen maantana sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo ay hor kacayaan samawadayaashooda culamaa diinkooda odayaashooda akhyaartooda waaye gabdho iyo wiilal sida ay u leeyihiin kuwa shabaab yiri maya meel kasto ay ku nool yihiin kuwa si gaar ay u taabatay oo miyiga Soomaaliya ku nool oo ay u diideen xurriyadda oo ay u diideen inay beeraha tacbadaan oo ay u diideen inay xoolo dhaqdaan kana urursadeen oo ay ka qaateen wixii ay haysteen beer haddii la tacbay wixii la soo saaro way qaateen xoolo haddii la ilaalinayo oo bar la ilaalinayo bartiina way qaateen kadibna intaasay dadka ugu dareen isticmaar ka weyn biyaa jira walaalayaal waa isticmaar dhinac walba markaad ka eegto dhaqaale kuma ogola xurriyad kuma ogola cibaadaysi inaad cibaadaysato kuma ogola masaajiday duminayaan culimadii dadka diinta baraysay dilayaan hal doorka bulshadu ay leedahay dilayaan meyd maxaa u dambeeyaa la yiri kaa la sii sida masaajidkii daaru nicma waad aragteen sawiradiisa
بريحان ميديا لوهي ومساجد لورد السي بيت الله إنويا أو أي لسان ضد محسنين أو صومالية أو دجان كودو أردستي ضد كودو إن أي عبادستان مساجد موحكة على القصة مايا أو أن أهين عبادة إلهي إن لقلو صلاة لقد كدو لقد تسبيح سدو قرآن كإلهي كتب كنت الله سوقات لقو آخريو علمي لقو برتو بل وحا انت كون أكسن قرد دسان أو قدسنان لها محيطاي نينك الديدي مدفع يبنبكو قرحيي دربياني سيد الدميي محاو دوري محاو نور ريبايو دمان ولا ليال دادك الصوماليات هفهمانو نمان كان خوارجتا خوارجتا وتاريخ إليهن ولا يقانا ولقل خارج عن الدين مقعاسي هو الدين تكبحي وايبا محل الشيء يا يوكسو كيو كاس استعمار كأها دين أو أسوء من سيه هو هايستي تيننا إنو دورو إلى حد أو أقراء هنولاتو همدودو أيسراعدو استعمار كهداد حسوستان تاريخ ذا الدبادو اكتين طبعا نقول دين ماهين كنيسة ديسو دسنين أيهو كعابتان لكن دادك الصومالياتنا ميلاب بدن أضلك كميدا مساجد وكالنسي وليوان نوليهن مساجد ديوان ليقانا والشباب مساجد أي دسين يا أركي صوماليي مساجد شباب دسين يا أركي مساجد الدميان مدرسان والدميان نين مساجد دمينية ما أقان مركز سيدة أو الدين أو أشياغن كارو ولا ليال آن عقلقينا كاشنو آن أغانو نمانكو وحا أيهين آن فهمنو مركان فهمنا كدب واسكاد عكرنا قيسياش الصوماليات ويلشينا يقبلهنا ككوبان أما عيداً كقلب كالسيدة أما محوها هاي مع وسليدة لمنك اللو يقانا دفاع بلشدة مالك السوء أي جوغان شرف إيا كرامو أي ليه شرف إيا كرامو أي ليه تاريخ دانا ويحسد دونتا مقعنا ويحسد دونتا ديغان أهانا ويحسد دونتا wiilka geeliisii ka soo tagay ee qorgii asaga uu lahaa soo qaatay ee yiri khawaarijtaana la dirirayaa sharaf shakhsi Soomaali oo gaari lahay meeshii ugu sarreeyay uu jooga oo leeyahay micno ku fadhiya qiyam iyo waxtar buu leeyahay wiilashaasi muxuu ahaa waxaan leenahay عمر الراجع الله يدسيه شرف يا كرامنا وأستاكتينه واتكون ولا ليال ضدك إنه حروبه وحيرها كدمة دجال هديل لقالو دجال هديل لقالو لس دجال لبقف الله كدجة والله كرجمبنا يا قف بمرة جنبني هدي مركا لا أركو مركا قاركوت خوارجتو إن أي مال قاركوت خيانتي إقداعدي وشقيسي مر والبا وما شقينيس وما شقين كرتو هذه أي وشقينيسي حوق يتبر ليهن دولك أي بنايين أي حوق اللوغة بنايين ما بنايين لهين واجوغ لهاي دول بلارن أو ضد صوماليات أو شرف لأيكونوا ليهن أيا مانتا نبات إي حريات كنا علونا مركي أي شباب كمية لهين اسكد ديدين انت لمن ضد صوماليات waxaan leenahay ha u diyaar garoobaano inay deegaanadooda ayaguna ay maya ka dhahaan intaas markaan uga imaado khawaarijta walaalayaal dalkani waa dhaqaaqay lama hor istaagi karo shacabkiisa dhaqaaqay xurriyadu qaatay islaamnimo qaatay dhaqaalaha inuu kordhiyo oo faqriga uu ka baxo qaatay
jiilkiisa cusub inay wax bartaan oo aqoon ayaa adduunyada maanta la isku dhaafayaa ay wax bartaan ayuu u istaagay dowladda Soomaaliya waxay u taagan tahay waxa dadka ka dhaxeeya ilaaliskiisa waxa dadka u gaargaarka ah dadka iskala wayna sameysteen bilcsamida magaaladeena waa aragteen dadkeenu hadda waxay u soo jeesteen in ay ka shaqeeyaan waxa dadka ka dhaxeeya isbartiibadan garoonkan maanta ay joogno bilicdiisa waad u jeedaan dadaa dhisay qarash ku bixiyay xoog ku bixiyay dowladuna ay garab istaagtay dadka iyo dowladda markay iskaashadaan bilicdan iyo quruxdan ayaan helaynaa on gaarina waxa dadka ka dhaxeeyay dowladdu istaagtay waad ogtii dowladda waxa laga rabo waxay tahay koow amni labo waxa laga rabaa adeeg bulsho tacliin caafimaad biyo nadiif oo la cabo marka amniga laga yimaado iyo dowladdu in ay fursado bixiso dadka dhaqaalahooda ay kor ugu soo kobcaan oo ayagu ay shaqaystaan oo ama kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinka dekadaha eerboorada internetka يعني waxyaabaha dadka aqoontooda iyo dhaqaalahooda kor u soo qaadayo dowladda waxa laga rabaa waa sidaas ay u taagan tahay waa wadna waad maqasheen waad ogtihiin qaarkiin halkan ay idin la fadhiyaan dhawaan dowladdu 3,000 oo macallin ayay qaatay 30 sano ee dowlad la'aanta lahaa waa nambarkii ugu badnaay oo macallimiin ah oo loo qaato in ay wax baraan jiilka Soomaaliyeed oo ay macallimiin ka noqdaan iskuulaadka dadweynaha public schoolska waxa loo yaqaan oo hooyada Soomaaliyeed ee la tacaalaysa caawa sidii cashada miiska ilmaheeda ay wax ugu soo saari lahayd bisha markay dhamaatay inaan la dhihin lacag keen Soomaaligi awooda aabihii awooda hooyadii awooda ha geysato iskoolaadka muxuu gaarka ah laakiin dawladdu waxa mas'uuliyad ka saaran tahay inay iskoolaad samayso tayadoodu ay aad u sareyso oo tacliin rasmi ah caruurta lagu baro 3,000 oo macallin ayaa maanta 1 July oo aan xafladda u fadhino ku jira tababar macallinnimo dalka oo dhan dawlad goboleed kasta ay ka jiraan meel kasta ay joogaan macallimiintaasi dad wax bartay oo graduate waay bal eeg dadka Soomaaliga damiirku macnaha uu leeyahay macallinkaas waxa laga yaabaa mushaarka macallinimada uu ku helayo laba ujibaarkiis ama ka badan inuu heli lahaa wax kale iska daaya hadii hay'adaha samafalka iyo meelaha intuu ka daba laabto turjubaanan idin noqonaya uu yiraahdo ayuu lacag badan intuu mushaarka macallinku helay ka badan ku heli lahaa laakiin wuxuu door biday inuu macallin noqdo oo waxa yarka oo dawladda maanta jirta ay u awoodana oo kaalmaysto ana soo maray macallinnimo oo macallin ahaa waqti ka mid ah oo mishaarka dawladdu ay bixisaa 5 maalmood biilka reerka aan ku filnayn 5 maalmood aan macallin ku soo kama baaqan aniga kaligay maaha macallimiintii ila midka ahayd beriga tacliinta joogto dhamaasida ay oo 100 kun ahayd dadka Soomaaliyeed weligood damiirka waa ka noolaayeen welina waa ka noolyihiin dawladda Soomaaliya tabar yaraato laakiin hadba intay tabarteedu la egtahay ayaa adeegeedu la ekaanaya 3,000 oo macallin budgetka dawladda lagu daray way ku jiraan mishaaraadkooda way qaadan doonaan 3 sano ee soo socotana dawladda waxa u qorshaysan in ay dhaqan geliso 10,000 oo macallin inay howl geliso 3,000 ay bilaaw ka yihiin 3 sano ee soo socotana sanad kasta 3,000 oo macallin in la qaato 10,000 oo macallin weli kuma filna baahida waxbarasho 4 milyan iyo jarjar caruur Soomaaliyeed ayaa sanadka 2023 waxay gaareen da'dii iskuulka aadaysay
waxba kama tarto 3,000 oo macallin iyo midda barnaamijka aada marka la isku daro intaba waxaan rabnaa dadkaasi maalin walba inta waxa kale oo intaas dheer kuwa da'da noqday oo da'dii iskuulka hore u dhaafay iskuulna fursad aan u helin ayaguna mawaarid mudnayn in ay waxbarasho iyo aqoon ay uga qayb qaataan dalka horumarintiisa in ay helaan xaq bay u leeyihiin wayna helayaan aqoon farsamo oo ku filan iyo mid maxaan ku raadayay technology oo ku filsanay helayaan oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka dawladdu waa ugu jirtaa xisaabka intaasna waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed hawshaas oo dhan sida difaaca haddaba dadka ay uga qayb qaateen oo dawladda iyo dadka markay iskaashadaan guulo degdeg ah loo gaari karo wax kasta oo ay dawladdu sameynayso ama ay ballan qaaday garab istaaga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda kaligeed dalkan kuma filla hay-adihii ku fillaa lahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xoogana hadday kobcayaanay kacayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dowladda Soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay wasaaradda tacliinta bas ma aha midda oo hadda shaqadeedii qabsatay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda ayaa shaqadoodii qabsaday wasaaradda difaaca ayaa muxuu ahay ka dhan wax la sheego iyo wasaaradda amniga gudaha oo ayagana amniga meesha ay marsiinayaan aan arkeen wasaarad kasta waa sidaas hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay wacyigelinta iyo dhalinyarada hadday tahay haweenka iyo xuquuqdooda mid walba waxay u taagneed waa dhaqaajisay alla garab istaago kuwa aan arag mahadsantahay maasha allah waa mahadsantii waxaan rabnaa marka dardaarankeenu uu yahay hay-adahaas dawladda ee dhaqaaqay hala garab istaago hay-adahaas dawladda ee dhammaantood dhaqaaqay siyaasadda hay-adaha ka shaqeeyo waad aragteen wasaaradda constitutionka arrimaha gudaha way wadaa dib u eegistii constitutionka socoto constitutionkii 10 sano dhammaan waaye 11 sano marayo ayaan rabnaa in uu bila ku dhammaado haddii alla yiraa oo dalkani uu yeesho constitution dhaba walaalayaal dadka Soomaaliyeed oo ogaada gob maahin waxbaa naga maqan inaan gob noqonnaan rabnaa inaan gob noqonno waxaa naga xigo 3 waxyaabood oo muhiim ah shabaab oo aan dalka ka xoreysano oo xurriyad buuxda aan helna koow dhaqaalaheena iyo hay-adaheena maaliyadda oo aan soo dhisno si deynkana looga cafiyo naloo arko caalamku noo arko kuwa hore u socda inaan nahay oo istari kara wax oo deynkana laga cafiyo waa 2 kor u qaadida dakhliga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wax badana kamid ah waxaas muxuu ahay kobcinta qodobka 3aad waa kan hadda sheegay dastuurkeena inaan dhammaystirno oo dastuur aan qabyo ahayn aan yeelano amnigeena haddaan sugana maxaa la socda bilowga gob inaan nahay muuqaalka iyo maxaa aragga inaan gob ka nahay xuduudaheennii badda iyo cirka iyo dhulka inaan ilaalinayno oo aan hananay walaalaheenna afrikaanka ah ee 15 sano na garab taagnaay ee space ama saaxa aan ku fakarno oo aan ku shaqaysano noo abuuray ee intaa noo garab taagnaa ee wiilal badan oo wiilashooda ay dalkan ku dhinteen ayagoo mahadsan
waxaan rabnaa marka waa soo taageersan annaga amnigeena qaadanayna waa mahadsantii inaan dhahno oo aan ubax intaan gacanta ka saarno aan sagootinaa rabnaa annagoo uga mahad celinayno wixii ayna tareen bisha December 30keeda 2024 waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee AMISOM ee hadda ATMIS loo yaqaanahay inaan macsalaameynaa rabno waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed oo aan maanta ugu bishaareeyo mar horeba ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegeen goobihii ugu horeeyay oo ay banaysay ATMIS goobihii ugu horeeyaan la wareegnay bisha September ee nagu dhow kuwa kale la wareegi doonaa sanadka dambana sidoo kale ula sii wada wareegi doonaa ilaa bisha December aakhirkeeda laga gaaro oo goobta ugu dambaysa aan la wareegi doonaa hadii aan la yiraahdo intaasi walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax oo ugu weyn waxa waaye dadka iyo dawladooda oo iskaashaday waaye ina fahamtiin aan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dawladoodu inay iskaashadaan sidaas daraadeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa al-shabaab waxaan dagaal hore ugu baaqnay waxa la yiraahdo garanwaa oo aan rabno hooyada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadowgu noo dhuumanin halkan waxa kale maanta ka uga baaqaya oo aan maalintii ciidana masaajidka aan uga baaqay maantana fursad aan rabaa inaan ku baaqo tuukalkaan yaa la noqon tuuga waa la qabanayaa ha qarinin tuukalkaan ha noqon kan shaqada jooga ee xafiiska tuuganimadu ka socota joogo adigu hadaadan tuug ahayn sheeg war meesha nima jooge bal hal la fiiriyade shaqa laga qabanayaa tuugu muxuu sababayaa inaan daciif ahaan dhaqaale yaraan inaan iska bixi weyno qarashaadka ciidan inaan qoro weyno ciidamadeena inaan ku filnaa weyno shaqaalaheena xafiisyada noo fadhiya inaan mishaarka sii weyno macallimiinta aan sheegaynayo wax yar oo mishaar la siinaya inaan sii weyno yani wax walbo oo dawlad laga rabay adeegii dadka ina wartuugu shabaab kama sokeeyo yawna idinkaga soka marin maaha qaraaba maaha war ninka tuumada tuuga lagu tuhmaay xeerka hortiisa la geynaa waa sheegay tuug haduu yahayna sharcigu wuxuu ka qabaa la marsiina dada yir tuug maxaa leedahay waa tuug muxuu yahay magac kale yaa u yeeli kara ya xoolaha dadkan dhan ka dhaxeeya ninkii jeebsiiba yahay waa maxay yaa magac kale u yeeli kara war waa tuug haddii aanu tuug ahayn waa la soo qabtay iyo maxaan ku iraahday waarana loo soo jaray yaanay ku dhibin maxkamadda sharciga la geynayaa haddaanu tuug ahayn tuug ma aha la leeyahay ninkan beena laga sheegay waa maxay midaas shahaado haystaa tuug ma ahan ninkan wixii lagu sheegay been waaye sharafa uga kordhaysa horumara uga kordhaya annaguna waa abaal marinaynaa tuug ma aha ninkii la yiraahdo tuug ma aha ninkii la yiraahdo waa abaal marinaynaa kii tuug waa la yiraahdo qaanuunku wuxuu ka qabaa la marsiinaya dib ma jiro waxaad adigu isku dhibto un baa dhib ah walaalayaal garsoorkii shalay ma ahan garsoorku shalay ma aha sidii xisaabiyayaasha iyo hanti dhowrayaasha iyo ciidanka qalabka sida aanay kuwii shalay u ahayn garsoorkuna kuwii shalay ma ahan cadaaladan ku aragnay waana ka filaynaa waana fiirinaynaa marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal
qalbigeena isku furno aan iscafino aan isku dul qaadano aan maxaan ku raad dawladdan hala garab istaago maanta hala garab istaago berri hala garab istaago weliga inta nooshahay dawlad ku nool iyo dawlad nool noqo dawlad la'aan maslaxad ku jirta waa la soo waayay waa laga quustay ballanteedu waxay tahay garab istaagidda dawladduna ballanteeda waxay tahay adeegii bulsho ee ummaddu ay ka rabtay iyo heshiiskii ummadeed oo ummaddu ay la gashay sida ay tahay in ay u fuliso waaye waana u fuli doontaa haddii aan la yidhaah aad iyo aadaad u mahadsantihiin mad kale hambalyo ciid mubaarak wa kulla caamin wa antum bikhayr guul soomaaliya guul soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo waxaan sidoo kale halkan aanan joognan hambalyo u dirayaa dadka Soomaaliyeed oo gobolada oo dhan calanka ka taagay ee u dabaaldegay hambalyaan leeyahay oo ay ku jirto magaalada Laascaano oo xalay calanka laga saaray hambalyaan leenahay dalka oo dhan ayaa looga dabaaldegay 60 guurada reer Laascaanana waa u dabaaldegeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhan yahay ugu dabaaldegaan waaye guul aan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaana hambalyaan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhawaan waa u dabaaldegi doonaa nabadda iyo wanaagga la haystana waa ku naaloonaynaa marka aan saas leeyahay cid gaara iga raali ahaado warka cid gaara oo warka lagu xumeynaya ma jiro walaalayaal reer Somaliland fariintan u faraya waxay tahay midnima wax leh aabayaashin ayaa keenay 1958 ragii halka waqooyiga Soomaaliya ka ambabaxay ee Ingiriiska tagay ee Addis Ababa tagay ee meel kasta tagay ee laha xornimo rabnaa walaalaheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwa haldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashii waxaan leenahay walaalayaal waa garaawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiif aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayimayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horeysana wanaaga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha Soomaaliyeey meel kastoo joogto ogaaw dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayaya xabad rido xabadda cadawaan leenahay cadawgeenu waa mid waa shabaab Soomaali kaloo fiican oo cadawno ma jiro Soomaali kala cadow ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogoleen fikirna ogoleen waa al-shabaab shabaaba xabadeenu ku jeedaa nin kale xabadanadu ku jeeda ma jirto ninkii gabiye muxuu yiri iska kaydin duul kala iga ka daran nin kastoo qayliya ama naxagxagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul nooga ka darana jooge walaalahaas gooniyan isu taagmin niri xataa waana looga daran yahay shabaabaa nooga daran ayaga gacanaan u waatinina cadowna maaha cadowna uma ahin waa wada hadlaynaa waana heshiid doonaa waxaan raalli ka wadanaa aan ku heshiid doonaa oo wanaagga ummaddu ku jira haddii aan yiraahdo guul Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha midowdo ha israacdo nabad iyo barwaaqo ha gaarto guulaysta adii kale